عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوتيوب جاك أدامنا السلام ودل حاصل مركي كقولي كده تهجرنا كان أصوب وقتي فضلنا حالي أصحابتي سبسكرايب شير أنا كومنت الله يسقدر أصحابتي معلومة إذا كم غناها هذا الصوت على أصحابتي حاليا اللي هي قفكي هوين وتهوي وناسل قفكي مال وتهوي مال وناسل الصومال هذا تيجي مركز أجوتن معناها مال أنت مال وناسل أصحابتي كسوري بعد ما أنت حرق أشياء كم حد لكن أشياء ما هن حيرو معناها كليب الصوت دكتور السوق هذا أو كلنا فيرس لقاها الله إله أنا قبل بلادين الصومال مركز أجوت إسلام مركز أجو لا كهاي كسوري بعد. السلام عليكم كسر الفيسبوك بيج كنا عبد الحليم علي ومانت وحاورة سنة كورونا فيروس مودنا كورونا مركب كواد محوية هاي قبيل كاجا انتينا كسو جيدا عائلة هذا قوس كاجا قبيل كيجا وحالقو مقعابا فيروس يدا تاج كله قوس كيجا أما أويا شيدا وحي يكونوا لا جرين ودنكا شينا مودنا كورونا محا أي تهاي سرت فافتان كاجا aniga oo kiligay ah ayaa gal unuga ku dhawaad 24 saac gudahood ayaa isku badiyaa ilaa ka noqdo 1 milyan maxaa lagu bixiyay magaca ah COVID-19 waxaa laga soo gaabiyay magaca caabuqa coronavirus ee 2019 hagaag goormee ahayd markii ugu horeysay ee aad soo muuqatay waana halkee markii ugu horeysay ee la arkay waxay ahayd 2019 waxaana laga helay magaalo ku taalo dalka Shiinaha oo la dhaho Wuhan gartay marka adiga sidee ku faaftaanay waxaa raaca dhibaha yar ee ka imaada hindisada qofka qaba coronavirus salaanta habisiinta iyo shumiska hagaag mudana corona marka intee ka gashaa qofka caafimaadka qabana jirkiisa waxaa ka galaa dhowr meelood afka sanka iyo indhaha gartay waa imisa muddada aad isku dhex qarinaysid jirka qofka waxaa ku dhex gambadaa qofka 2 ilaa 14 maalin marmarka qaarna 5 ilaa 6 maalmood ayaa kaga soo muuqda qofka maxay tahay hadafka ama ujeedada kaas kugu dhiirigelinaya inaad qofka jirkiisa gashid inteena weerartaane waxaa weeraraa habdhiska neefsashada waxaan isku dayaa inaan buriyo hagaag maxay tahay bii'ada aad jeceshahay oo hooyga ku noqotane waxaan jeclahay deegaanka qoyan ee qabow ee leh harka ama hooska hagaag mudana corona maxay tahay astaamaha lagu gartane qandho daal hergab qalalan iyo qofka neefsashada ku adkaato hagaag marka maxaa jeceshahayne waxaan jeclahay cariiriga iyo isdhaxgalka dadka ee nadaafad la'aanta iyo meelaha qabow ee qoyan maxaane neceb tahay waxaan necbahay guriyahoo la joogo nadaafadoo la badiyo iyo deegaanka qalalan adiga ma dishaa qof kasta oo aad jirkiisa gashidne maya aniga dadka qaar waxay iga faafiyeen waxaanan jirin oo been ah boqolkiiba 80 dadka ku dhaco way ka bogsoodaan wayna caafimaadaan boqolkiiba 17 dadka ku dhaco waxay u baahan yihiin karantiil iyo gargaar caafimaad hase ahaatee waxaan dilaa 2 ilaa 4 boqolkiiba dadka ku dhaco maxay tahay sifada uu leeyahay qofka aad dili kartid waxaan dilaa dadka waaweyn ee cayiran ee qabo cudurka sokorta dhiigkarka iyo cudurrada nafsadiska neefsashada ma ku dhacdaane caruurta yaryar maya waa u naxariistaa caruurta yaryar haddii jeer waxa badan inta aan ku dhicin cudurka ma i baraysaa qaabka aan kaaga hortagi karo adiga haa dhab ahaantii marka koowaad ku sugnaa gurigaaga ka fogow meelaha dadka isku imaanayaan gacmahaadana si joogta u dhaq waa inaad yareysaa wax walba aad taabanaysid mudana corona waxaan ogaanay oo baranay wajigaaga madow ma leedahay waji kale oo cad haa waa leeyahay waji cad waxaana qabtay shaqooyin muhiim ah waxaana kamid ah inaan nadiifiyay deegaanka oo fududeeyay in isla hadlaan qoyska isla sheekaystaan waxaa qabtay shaqooyin ay qaboweysay hay'adda caafimaadka adduunka waxaana kamid ah inaan dadka baray nadaafadda qaasatan dadka aan muslimka ahayn mudane corona hadeertaan qalbigaaga ma ku dagayne haa qalbigayga way dagay waxaa dadka baray cashir lama ilaawaan ah waxaana burburiyay isla weynidii ee lahaayeen gaalada iyo dhibkay ku hayeen muslimiinta ugu dambeyntii maxaa ku dhahaysaa taageerayaasha Cabdixaliim Cali ku sugnaada guryihiina muuqaalkan la sheergareeya oo gaarsiiya dadka oo dhan maxaa u sheergareey laadihiin waryaada ha ka baqi mudana corona muuqaalkan waxaa sheergareey doono qof kasta oo daawaday insha Allah coronavirus warkiisa soo cadeystay ilaahay idinka badbaadiyo muslimiinta meel kasta ay joogaan sadaqada inay badsadaan khayrkan ay ku dadaalaan markasta ay xusaan ilaahay